بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شركتون كبارلمانka mudanayaasha golaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare xubnaha golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada qalabka sida marti sharafta iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland meel ay joogaanba gudaha iyo dibadba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحي شرفة إن المانت هوري معضو لبضا القرى وكيل هذا يقول تدا يمرتزا كلا يسر السبعة وأنا كان كتشيديو خطبة دي دستورية هاي لو كون يكويرات ولا ليال sanadkii tagay 2020 wuxuu la kowsaday xanuuno aan adduunka hore loogu arag oo galaaftay marka caalamka oo dhan la eego 2 milyan iyo badh ay u dhinteen malaayiin kalena jiifto oo ku dhacay waxa ilaahay mahadiya inaga Soomaaliland eragii saf marka ahaa oo bixinay buu ilaahay noo aqbalay dhibaatadiisu way nagu yaray marka loo eego adduunka waxa gaaray 250 qof baa inaga dhintay iyagana Allah u naxariisto dad aan tiro badnayn marka loo eego caalamkana uu ku dhacay oo qaarimka oo bukaan kuwana Allah caafiyo hase yeeshee waxa laga dhaxlay waaya aragnimo oo ah in la helay dawo ama talaal laga hortago adduunkuna aad isku mashquuliyay walaalayaal sanadkan Soomaaliland wuxuu ahaa sanad nabadgelyo ay gaadhay oo ay guulad badan u soo hoydeen sanadkii tagay mandaqada aynu ku noolahay iyo caalamkaba waxa ka dhacay dagaalo lagu reeqday oo adduunka meelo badan ka dhacay dagaaladaasi adduunka ka dhacay waxay muujiyeen saameynta tiknoolajiyadu ku leedahay dagaalada adduunka waxaana dhala rogtay wajiyadii siyaasadeed ciidan iyo dhaqaale adduunka walaalayaal Soomaaliland sanadkan wuxuu ahaa sanad ay ku guuleysatay inay ka heshiiso qabsoomidda labada doorasho ee isku sidkan baarlamaanka wakiilada iyo dawladda hoose waxaan ku soo ururinayaa sanadkan Soomaaliland waxay tirsanaysaa hadmadiisii hore ee xanuunka ahayd oo haratiisu inay qaboobeyn oo Ilaahay naga nabadgeliyay inaga mar haddii daldegan yahay oo nabadi jirto adduunka oo dhan wuxuu u tartamaa oo hore u qaada waa dhaqaalaha marka la eegayo dhaqaalaha Soomaaliland marka adduunku isu tirsanaya dhaqaalayaasha daluurintu dhaqaale leeyahay waxa la hubaa Soomaaliland waxa lagu tiriyaa dalalka dhaqaaloodu yar yahay ama aanu buurayn sida ay tahay haddana dhaqaalaha Soomaaliland sanad walba sanad ka dambaysa uu kobcaa oo waxba ku kordha taasina waxay ku timaadaa dadaalka shacbi weynaheena xukuumadii iska dambeeyay baaxmushtarkeena oo sameeya maalgashi qurbajoogeena oo sameeya dhaqaale dadban qoysas ku masruufaan iyo maalgashi ay dalku sameeyaan marka inta la isu geeyo sanad walba dhaqaalaheenu uu kordhaa dhaqaalaha dalkeena waxa wada dhexaad u ah 4 tiir oo kala ah dakhliga u soo xorooda hay'adaha dawladda oo kastamada badan ka soo hooyto baaci mushtarkeena oo sameeya maalgashi hantidooda dalka ku maalgeliya shaqaabo ruux sameeya haba yaraatee taageerada dadban ee ay leeyihiin qurbajoog iyo maalgashiga shisheeyaha iyo deeqaha inaga soo gaara dalkan saaxiibkana
dakhliga miisaaniyadda ee xukuumaddu maamushaa boqolkiiba 10 buu ka yahay dakhliga guud ee dalka GDP waxa dalku dhaqaale soo saaro dawladdu boqolkiiba in ka yar 10 ayay maamushaa inta ay maamusho dawladdu boqolkiiba 50 iyo badh waxay ku maamushaa hay-adaha amniga waad ka garan kartaa halkaa dalka boqolkiiba 50 shaqaale iyo amni geliyay 48 ka soo haray waxay u qaybsamaan baahiyaha badan ee dalka oo ay ka mid yihiin baahiyaha asaasiga ah sida tacliin biyo caafimaad wadooyin iyo wax la mid ah ictiraaf raadin deeqaha dibadda inaga soo gaaraa waa kooban yihiin waxaana u badan yihiin mashruuciin tijaabo ah waxaana ugu wacan dowladda xamar ka dhisan oo lugta jiidisa Soomaaliland dhaqaaladeedu inuu horumaro caalamkana inagala dagaalamaysa in dhaqaalo buuran oo toosan helo walaalayaal markaynu eegno dhaqaalaha dastuurkiisa dalka waxa qeexaya qodobada 12 ee dastuurka oo ay tahay in dhaqaalaha noqdo suuq xor ah in dhaqaaluhu aanu noqonin dalku aanu qaybsamin in hoodana oo lacag dhaqaal barwaaqadu ku ururto iyo in sabool aad u ka yaala waxa kale sheegaysaa in iskaashadaan sharcigaas wuxuu sheegay iskaashadaan hantida gaarka ah iyo taguud qodobka 12aad oo isna ka hadlaya dhaqaalaha sida loo maamulayo oo dhulka ah oo dhulka dhammaan isugu dhaqaalo dhulka ku soo noqdo wuxuu tilmaamayaa inuu dhulku yahay hanti guud oo ummadda ka dhaxaysa meel u jira mas'uuliyadiisa maamulkiisa ay dawladdu leedahay tan iyo intii aynu dib ula soo noqonnay xorriyadeena dhaqaalaheena xukuumaddu ay maamushaa wuxuu ku tiirsanaa kastamyada cashuuraha wixii kastamka soo mara ee dibadda inooga yimaada oo kaliya markii COVID-ku dhacay waxa soo baxday inaanu ahayn cashuurta kastamyadu wax qaran isku halayn karo oo dawladdu ay isku halayn karto waayo markii caalamka kala xidhmay ee dal waliba maraakiibtiisa xidhay kastamyadana way xidhay waxna soo jiraan cashuuraha aynu qaadnaa ee barigu boqolkiiba waa 22 halkaa waxa ka muuqata dheelitir la'aan ah oo ay ahayd inay dhaqaalaha inta badan ka yimaado dalka gudihiisa iyo cashuuraha bariga oo ayna ku tiirsanaan wax badda ay cirka ka imanay ama xadka ka soo gudbaya walaalayaal sanadkiina dhaafay waxa dalkeena la soo gudboonaaday carqalado waaweyn COVID-19 oo inaga hadduu safar noo noqday kala xidhay isu socodkii baaxinta adduunka iyo wixii dawladda cilaaqaad la lahayn oo yareeyay aad iyo aad u yareeyay dhoofkii xoolo la joojiyay sababtoo ah xajkii baa la joojiyay koonfurka dartii ayaa xujayadii laga joojiyay xarabkii xoolaha dhoofayna waa joogsadeen waxa intaa dheeraa ayixii ka dambeeyay ee dalagii oo dhan xaalufiyay sidaa ay tahay haddana dawladdu waxay dhexda u xiratay in wixii guntiga loo geejiyo waxyaalaha laga maarmaanka ee qaranku u baahan yahay miisaaniyadda qaranka ee sanadkii tagay waxa laga maalgeliyay 106 mashruuc oo qiimahoodu dhan yahay 173 bilyan sanadkan imka aynu galay waxa loo qorsheeyay in la maalgeliyo lagu maalgeliyo 273 bilyan in sanadkan mashaariic cusub lagu hirgeliyo iyadoo waxa soo duruufo adag inoo soo kulmeen waa la kordhiyay maalgelintii mashaariicda deeqaha dibadda ee ka hor aynu helnay waxay ahaayeen qiimahoodu 164 bilyan oo Soomaaliland shilin waxa la kordhiyay shaqaalaha dawladda sanadkii inaga tagay 10% saddexdii sano tagayna waxa la kordhiyay 26 tirada la kordhiyay waa 5150 inkastoo xukuumaddu dadaashay oo shaqo qaran dadka laga qaatay ee soo maray badankoodu
haddana waxa ay muuqata duruufaha aynu marayna awgood dadka la qaaday la shaqo geliyey inay yihiin dhibic marka la eego inta shaqada oo aanay boqolkiiba 10 ahayn dhalinyaradii shaqada u baahnayd culayska intaa leeg wuxuu u yaallaa sidii loo xali lahaa dhammaan in la isugu tago oo weliba qayb weyn uu ka qaato suuqa xorta walaalayaal iyadoo oo duruufaha aynu soo sheegi jireen waxaynu ku guulaysanay in shilinka halkiisii ku nagaado 3 sanadood oo aanu dhaqdhaqaaqin isla markaana sicir bararka inflationku uu hoos u dhaco 3.5 boqolkiiba Somaliland waxaa ka jira 4 baan oo gaar loo leeyahay 4 baan lacagta taala ee shicibku dhigtay ee dhigaalkii waa 200 oo milyan waxay deyn u bixiyeen ama mashaariic amaahiyeen 70 milyan waxa lacag dhigaal taala baanankooda 130 milyan oo aan ka qayb galin wareegii maaliyadeed ee wax soo saarka lahaa haddii lacagtaasi ay wareegin lahayd warshadana waa abuuri lahayd isbitaalana waa dhisi lahayd shaqo abuur way keeni lahayd marka in kastoo duruufahooda gaarka ah yihiin baarankeenu oo korayaan oo dadka la mid yihiin haddana waxaan ku dhiirinaynaa in ay maraan habka ay ku shaqeeyaan baaranka caalamka ah ee private oo ah dhigaalka la dhigo lacagta la dhinto boqolkiiba 90 ugu yaraan inay ku bixiyaan deyn oo dib dadka u galiyaan si wax loo soo saaro xagga beeraha inagoo og talaabooyinkii hore la qaaday sanadkan waxaa lagu soo kordhiyey machadka cilmi baarista beeraha markii aynu dhowr jeer 3 sano hore kolba meel gelinay mashruuc xaaxi beer wajaale mar walba waxa soo baxday kolba cilad aynaan ogeyn waxa ka mid ah shinida ama seedskii oo isbedelay waxa soo baxay dulin badan oo keeneen intooyinka loo keenay waxa soo baxay abaarihii istaba joogaha cimiladu ay gadiyeen marka waxa loo baahday in si cilmiyeysan loo galo hawsha beeraha marka waxaanu abuuray macadka cilmi baarista oo la rabo wixii aynu maal galeynaa si cilmiyana inuu noqdo goob kasta oo la gelinayo waxaa la hayaa imika oo la soo ururiyey 23 nooc oo ah shinidii u ahayd Somaliland asal ahaan cimiladeeda waxaanu abuuri doonaa hadda baanka shinida ama seed bank oo lagu ururiyo dhirta dalkeena ka baxdo oo dhan nooc kasta ay yihiin in la hayo seedkooda si aanu dalka dhirtu uga dabar go'in sida hadda ay ku socoto oo imika dhir badan oo ku ugu qoyo badan la leeyahay shinidoodii xanaanada xoolaha maadaama sanadkan horena koofirku aad u joojiyey macaamiishtarkii xoolaha sanadkan dambana hawshoodii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagali lahaa adeegyada bulshada barkood ama hay-adaha wax soo saarka xanaanada xoolaha beeraha investmentka maaliyadooda u qorshaysnayda wax loogu horumari lahaana waxaa loo wareejiyey inta badan miisaanida doorashooyinka sanadkan sida ay tahay waxay talaaleen 3 milyan oo neef oo ay ka faa'iideysteen 180,000 oo qoys xoolo ay lahaayeen bay gaareen kalluunka oo ah meesha adduunyada u guuraysa badda meesha badda waxa la yiraahdaa dhaqaalaha buluuga ah ee badda ah oo inaan aqoonteedana lahayn u baahannahay in xoog badan saaro waxaan imika la bilaabay muddo dheer kadib oo sanado badan loo hay-adaha qaar laga codsaday ay sanduuqa lagu caawiya laga waday dekada maydh oo hawsheedu bilaabantay oo ay ku baxayso 5 milyan oo lacagta Mareykanka ah waxa dhamaaday wajigii koobaad ee dekada berbera waxa dhamaaday 400 mitir ee dekada hawaadhay haddii aan la yiraahdo juun awalkeeda sida la filayo
ilaahay kiisa waxa bilaabi doonta in maraakiibtu soo xidhaan oo uu kordho xawliga dejinta konteynerada iyo bagaashka ay wadada ka duumika intuu yahay boqolkiiba 76 baa ku kordhi doona juulaa marka la inta ay lagu shaqaalay dakhligu ka soo garay waxa kaloo yara la xusnaada inta in leeg oo samxada oo dariiqa yar ee dhuwara imika la wado ee berberiya u dhaxeeya wajaale oo noqon doono baabuurta culus wada ayso oo yara waxa loo baahan doonaa wadooyin badan marka horeysa wax kasta ay u qaatay in hore loo bilaabo wadada burciyaha Hargeysa xidha si loo kala duwo xamuulka dekada ka soo baxaya iyo baasajariska dalka isku xidhay oo hawl degdeg weyn oo taalo waxa kale oo u baahanaan doonaa waxa kale oo qorsheeduna sugi doonaa xamuulka ka baxaya dekadu inuu meelo badan oo xadka ka baxo wadooyin badan oo u furan dalka jaarka nahay sabayntooda iyo dawladda jaarka inuu kala heshiido si aanay u noqonin culayska dekadu mid xidhma oo wada qura ma xaji karto 450 kun oo container guridooda iyo soo celintooda hawsha la garan kara sanadkii gaadiidka u baahanayso wadooyinka u baahanayso meelaha ay ka baxayso yar waa qorshayaal degdeg weyn nagu soo qornay oo gacanta lagu hayo haddii alla yiraahdo sanadkan soo socda waxa la furi doonaa September July ama September u dhaxaysa waxa hawlgeli doona garoonka caalamiga ah ee Berbera oo noqon doona garoon baasanjar iyo xamuulba ay iman doonaan diyaaradaha ugu qaadka weyn adduunka ugu culculistay iyagu oo intay ka qaadaan Berbera xamuulka u gudbi doona Afrikada kale hadda meeshii ay macaamil yeeshaan dadku ismihii wadada Berbera corridor halkii waqtiga loogu talagalay ka gaariyay sabab kasta haatee laakiin hadda inta dambe xawligu ku socdaa isaguna waxaan isagana haddii la yiraahdo sanadka soo socdo 20 qaybtiisa hore u dhamaado waxaan laga xirignay iyadoo aan arkayno duruufaha ay u baahan doono wadooyin fara badan si la isku xidhay magaalooyinka gobolada waaweyn bariga galbeedba oo qorshayaal badan oo markii hore barnaamijka xisbiga ku jiray haddana kolba kii la qaadi karo loo bilaabayo la isku xidhay oo la bilaabaya wadada isku xidhay loo yacadeeyo warama oo u maalgelinaya Banka Afrika hadda waxay bilaabeen sahamintii ama survey oo qaadan doona muddo sanad ku dhawaada marka survey dhamaado insha Allah taasina way bilaabi doontaa waxaan filayaa in sanad iyo 2 sano gudahood ku dhamaato waxa kale oo bilownay wadada isku xidha Burca iyo Oodweyne haddii la yiraahdo oo iyadana imika hawsheedii la bilaabay oo ay filayno inay muddo gaaban ku dhamaato waxa dhamaatay oo 200 kilomitir oo qori ka hareen wadadii Burca Ceergaabo saddex bilood soo socota haddii aynu ku dhamayno sanadka bartankiisa waxay u wareejin doonaa muddo xoogeeda iyo xoogeeda iyo quwadda wadada dadka shaqeeya waxa loo bedeli doonaa inay isku xidhaan Burciya Berbera si loo yareyn karo culayska ku dhacaya wadada Berbera iyo xamuulka ka soo baxay waxaa la dhisay wada isku xidha madaarka iyo magaalada Laascaanood mudanayaal iyo marweyn dawladdu guud ahaan waa amni sugaha dalka amniguna waa ka ugu culays badan isla markaana dawladdu waxa ku soo baxsatay inay noqoto shaqa bixiyaha ugu weyn ama shaqa galiyaha dadka ugu weyn runtii taas oo u baahnayd in suuqa xortii sida caalamka ku dhaqma suuqa xortii oo suuqa xortii qaybta badan qaato haddii warshaday tahay iyo haddii maalgelin tahayba waayo lacagtii waxaynu dalka inta soo gashay intii badan waxay ku jirtaa suuqa xorta ama baac mushtarka haddii dawladdu noqoto adeeg bixiyaha ugu xoog weyn oo haddii dawladdu tacliintii iyo waxbarashada caafimaadkii iyo biyihii laga rabo inkastoo oo ay suuqa xorta baac mushtarka ku jiraan haddana waxaynu u baahanahay baahida dalkeenu u yaala ee arrimaha asaasiga inay aad iyo aad loo kordhiyo iskaashiga baac mushtarka iyo xukuumadda arrimaha ku saabsan mujtamaca
oo qolo walba dhaqaale ahaan qayb ka saarantay adeega bulshada maadaama aynu hore u sheegnay oo miisaanadii aynu gelin lahayn adeega bulshada in badan u leexinay miisaanada doorashooyinka wasaaradda waxbarashadu sanadkii hore waxay u xidhay tababar 600 iyo 400 oo macallin bay u xidhay tababar kor u qaadisa sanadkanna waxaa ku jira imika oo bilaabmay inteedoo la wanaajiyo 670 arday macallimiintaasi waxay u badan yihiin distriyada iyo degmooyinka fog kuwii ka howlgelayay dadka imika la tabarayana waxay u baahan yihiin ardayda shaqada qaran soo martay ee lagu shaqaaleeyay wasaaradda sanadkan wasaaradda tacliintu waxay dhistay 67 iskuul oo cusub ayay sanadkan qaarkood way dayactirtay laakiin waxa dayactir ay dhulka ka soo qaadeen oo dayactir dhaawac weyn aad u gaaray ayay hirgelisay wasaaradda caafimaadku sanadkan waxay u adeegtay 1 milyan iyo bad bulshada kamida ayay u adeegayeen caafimaadka ee dowladda gacanta ku haysaa waxaa kordhay 12% dadka ay u adeegayso isbitaalada dowladda gacanta ku haysaa waxaa xusid mudan inay fara badan yihiin isbitaalada gaarka loo leeyahay oo hawlo badan qaranka u qabtaan hase yeeshee waxaynu u baahanahay in hogaaminta caafimaadku meel qura ka ahaado waxayna haystaa dhibaatooyin fara badan oo la xiriira caafimaadka oo u baahan maamul isu geeyo dhakhtarro badan iyo dad gaar ah ayaa lacag badan iyo hanti ay leeyihiin geliya caafimaadka oo aan la hubin inay ka heliyeen kale inay ka soo saari karaan kale iyadoo dadkii gaarka ah lacagta intaa la geliyaan dowladuna miisaaneed weyn gelisa caafimaadka oo labadaba dhaqaale qaran isku tagay yihiin intaa waxa ka badan inta ku dhacda qofka buka iyo shicibka gaarka ah marka waxa weeye lacag caafimaad ka socota dadkii gaarka ahaa hantilaashii gaarka ahaa maalgeliyay iyo tii dowladda oo yara baxaysa iyo dadkii bukay oo iyaguna inta in leeg marka loo qaybiyo keeshiyada ku baxaysa in leeg ka badan bixiya tusaale soo qaadanayna walaalayaal caafimaadka waxa inagu soo kordhay cudurro hore inoogu yaraa oo ay keentay isbeddelka nolosha dadkeena dhiig karka kansarka macaanka xanuunka la yidhahdo macaanka waxa intaa dheer xanuunkan buroolka la dumarka ku soo batay oo inantii oo laga yaabo inay 5 jirta 6 jirta oo ay magaleekada buraa taala deetana ay dhibaato ku timaado waxa laga yaabo buraasi inay qaar ku dhalaan oo aan dhibaato lahayn laakiin waa phenomena imika ayna hore u ogaan jirin ilaa ogaan jirin hore dumarka ciidamo ogaan jirin marka xanuunadaas oo waxay u keeneen walwal fara badan maxaa dhacay marka waxa dhacay dadkeenu inta badan kuma nagaadaan ma aaminaan dhakhtarradeena ama private ha ahaadaan ama kuwa dowladda ha ahaadaan xanuunka soo sheegaan iyo waxay ka baaraan haddana waxa loo leeyahay 99% qofku markuu dibadda u baxo xanuunkii loo sheegay iyo tilmaamihii looga sheegay halkan ama private ha siiyo ama ka dowladdu ha siiye inay isku mid noqdaan oo farku la socda kaas cudurku ma ku hayo wax ka qabashadii waa timid dadku waxay aaminsan yihiin dhakhtarradeena private ah dowladdu haadee inaanay lahayn awoodii ay ku daweynayeen waxaase la hubaa 99% maanta qalabka aynu hayno in uu yahay mid gaari kara haddii dhakhtarada loo baahdana isku maamulkii dhakhtarradeena inaynu hubinaa wanaagsan maxaa dhacay wax walba waa suuq xor ah wax waliba la baa waa suuq xor lama taaban karo caafimaadku waa xor lama taaban karo tacliintu waa xor lama taaban karo marka waxa weeye waxyaalo bini aadmi hal dowlaha u ahaa ee caafimaadka dhakhtarkii haddii aanay jirin tala midaysan oo raaco isku yimaada waa la lumaya sanadkan inta soo martay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland dhakhtar dibadda qabatay waa shan kun lix kun waxa laga yaabaa inta in ka badan ama la bilaabo inaan soo marin ba wasaaradda caafimaadka marka dadka la eego lix kuma haduu ka soo qaado oo aad 10 kun oo doolar ku fatay kharash ka baxaya India Turkiga bay tagayeen de sanadkii waxay noqonayaan 60 milyan oo doolar 60 milyan oo doolar waxaan ku dhisi karnaa ama ugu yeeran karnaa caafimaadka dhakhaatiirta iyo qalabka adduunka ugu sareeya marka maxaa dhacay hantidii waynu haysanaa taladii maamul ayaan u baahan isku xidhno waxaynu ka fahamnay khalad suuqa xorta dowladdu distoorka faraya ma faragelin karto suuqa xorta laakiin suuqa xorta facilitator dowladdu waa inay kala hagtaa dadka
hadduu baacmushtar iyo hadduu tacliin hadduu caafimaad dowladdu weyna kala hagtaa oo shuruucda caqabada ka soo baxaya ayay xukuumadduna fulinaysaa maxkamadduna kaga qaadaysaa waa inuu sharcigaas dadka kala hagaadee laakiin hadduu dhakhtarkii baraafitka ahana cid xugta waayo kii dowladda hana meel maro qofkii bukaanka hana meel dhexa ku lumo war khasaareen isagu ku baaba'aya markaa sharciyadiina waa la hayaa baarlamaankiina waa joogaa xukuumadduna fulinaysaa dadkii aqoonta dhakhaatiirta baraafitkana way joogaan isugu tag baynu u baahannahay qofkii oo dhiig baxay qofkii waxaa la geenaya cisbitaal gaara waa lala soo rafanaya xanuunkiina waa kusii fidaya kharashkiina wuu ka baxaya ku kalaa la geynaya 9 egisray oo u baahan baa la marinaya wuu ka soo baxaya markuu dhamaado waxa la leeyahay ka dawladda geeyay iyaga Australia waxa leeyahay kabacdi waxa la leeyahay dhakhtaradina guduhu waxbay ka waayeen hal la qaado qofku uu dhinto cudurku ku sii fiday waa mar kala dhacay dhaqaalihi halkan uu kaga baabay marka la gudoonaya aqli bay u baahan tahay dawladdu way furan tahay inaan loo baarlamaan u soo jeedino dadka u soo jeedino inaan xoogaa mideynay aqliga ayaa aqoonta taa caafimaadka intaasaan ku dhaafayaa xagga biyaha sanadkan waxaa la qoday 24 ceelo dhaadheer ceelal badan oo dhowr boqol ka qodan dalka haddana marka biyaha iyo abaaro yimaadaan waa biyo la'aan taa lafteedu waxa la mid ah tan soo sheegay oo kale oo dhibaato badan baa ka jirto marka ceelkii la qodo deegaan baa lagu wareejiyaa 9% meelaha fog dhan marka lagu wareejiyo deegaankiina si fiican u maamulaan bil walba dawladda wasaaradda biyaha miisaaniyadda inta loogu talagalay 3 bilood hore waxa ku dhamaataa dayactirka deynagooyinka ceelkii baa la qodayaa deegaan baa laga imanayaa dadkii ama aqoon ma laha ama uma arkaan waxa kharibi kara wixina waa system waa electric waa mechanical hadda imika aynu joogno oo abaara dhaceen dhowr iyo 20 ceel baa wigi u dambeeyay loo qaadayay deynagooyin waxay u baahan tahay inay wasaaraddu gacanta ku hayso ceelasha oo loo tababaro imika 20 qof oo horeeyay baa la tababaray oo ceelasha lagu tababaray iyo deynagooyinka iyo dabka ceelka si loo ilaaliyo inuu tago in ceelka halka lagu hayo waxa laga codsanayaa inay la gaarsiiyo waliba golayaasha dadka deegaamada ka wakiilkatiin inay u fahmaan ceelku inuu u baahan yahay dad gaar iyo aqoon gaar oo inaan ka baxay mar walba maanta u kul ceelasha fadhiya bariga galbeed waa laga siiyay halka waxa ka jira dhiig bax badan oo farsamo aqoon la'aan waxa la qoday 12 ceelo gaagaaban sanadkii tagay haddana marka ay soo qayrada bilaabanto biyo la'aanta ceelasha waxyaalaha qaarkood waa inaynu kala hadnaa wax meelyaal oo ra'yaynu ka iska ogolahay abaartu way soo noqonaysaa dalkeenna waa la yaqaanaa 4 bilood jiilaal baa jooga ilaa abiya oo inuu soo noqonayo qaarna haddaynu dhulka ceelal ka qoday waan ceelasha leelay socda halkan dawladdii hore kulmiye abaartii dheerayd iyo culimadii iyo baayimusharkii bariga kaalbeed istagay waxay soo iibiyeen bariga oo lacagta loo riixay lagu wareejiyay 8 boodood oo dawladda lagu soo wareejiyay alla soo wareejiyay 8 iyo laba lagu dareemay way joogaa taayirka waa bajaray maalintaana sidii bay u hawlgalayaan ilaa maanta waxaana maamulka marka la xajiyo kala dhawaa wixii abaaraha ee si kale loo isticmaali karo boodahaasi dayactirkooda iyo daruurtooda hawl kala ma galaan xaafadu soo dhaan ma galaan madaxweynaha gurigiisa beelaan ma gali karaan janka gurigiisa beelaan ma gali karaan iyo wasiirka toona meel bay yaalano waliba si aano dawladda aad u weyn waxaan wasaaradda diinta oo qaafta ahay bal idinka nagu aamaado idinka qolada diinta ah hawlaha gudaha ku karanta wasaaradda hawlaha gudaha dayactirka iyo sameeyntooda iyo darawalintooda imtixaanay qaar saxayay baa leeyahay waxa ilaahay mahadiyo markay imka abaartu bilaabantay boodii ugu horeysay oo tagtay laascaanood inay imka dalaa bilood shaqeynaysa oo darawalkii waday intuu kiiloomitir socday tahay 2,200 kiiloomitir maalin qulays buu taagay 9 foostay qaada in 10 bood qabtaa waayo waa darawal xilkasa iyo gaarada dayactiray laba kala togdheer ku jira iyaguna imka muddo bil ah inta aan leegmay socday kuwa kale hadda waa loo kala diray gobolada marka waxaan u baahanahay in ceelasha deegaanada ilaaliyaan dadka u tababaro aynu ogaana inay abaartu ka mid tahay nolosheena marka qulaha dhawaaqana aynaan dhawaaqin inta waxaan ku dhaafay arrimaha bulshada amniga dalka mudarayaan dalku maanta waa amni nabad taan ku jira waa ilaahay mahadi taana waxa keenay dhammaan shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba iyo shaqo uu hayo iyo da uu yahayba
waxaa hubaala inuu shacbiga Soomaaliland maanta dhammaantii ka midaysan yahay inuu nabadgelyada ilaashado wixii khilaafana si miyir qabo ku dhameeyo waxa la xurgufaha oo dhan dadka ayaa dhameeyay dawladdu waxay ka ahayd fududeyn isugu yeeridda shirka qabashada waxa awoodda iyo juhdiga galiyay wixii oo shirxaay soo dhacay sanadkii dhaweyto oo ugu dhaadhaarayeen kuwii ala cadeeyay waxa dhammaantood lahaa dadka deegaamada oday dumar sheekh dhalinyaro oo ka midaysnaa in wax kasta oo dhibaato jira si nabad loo dhameeyo waana ilaahay mahadi waana talo wanaagsan oo helay guul weyn ku gaadhay difaaca dalka Soomaaliland waxa ilaahay mahadiya inay leedahay awood ciidan oo aan la dhayrsan karin iyo ciidan birlab ah geesiyaal ah waay arag ah naftood hurayaal ah soo majeestayaal ah oo maanta nabadgelyada dalka inuu cadow soo hunguriyo ka hiray iyaga xoogoodana dadku ku hurdo baayac mushtarka iyo siyaasadana difaaca ay noo hayaan aynu ku wadno shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland abaal aan la iloobi karin buu hayaa hay-adaha dawladda hadduu baarlamaan yahay hadday maxkamad tahay hadday furin tahay dhammaantood wax kasta oo dawladda la bilaabayana mudnaanta koowaad waxaa kale ciidamada amniga iyo ciidamada qaranka amniga siisaba caalamka imika waxaan u kala qaybinaa loo kala qaybiyaa waa laba cilmi ayuu kala leeyahay cilmi waa difaaca qaranka waa ka xooga iyo nin walba intuu taal hay mid murduriyale iyo mid dayax wax ka soo tooganaya iyo mid warar haysta nin iyo itaalkii mid waa ka ciidanka u daafacay nabadgelyada dalka u daafacay deganaanshaha kale amniga kale waa ka weynka oo waa ka ah dalku muxuu nabad noqdaa markay bulshadu degantaysa aaminto haddaanay bulshadu deganeyn dalkaasi amni maaha dalka waxa lagu qiyaasaa amniga markaad eegto labada guriga jaarka ah inay wax wada leeyihiin oo isaaminsan yihiin labada magaalo ee isku xiga inay isku mid yihiin oo si sharci wada arkayaan oo si dambiga wada khilaaf ku wada dejiyaan laba gobol haddaynu si kala laba beelood marka ay ka midaysan yihiin isla ogol yihiin khilaafka bini aadmiga ilaahay baa abuuray nabadu waxay ku timaada markay ogol yihiin khilaafka si loo xalinayo alxamdulilah inagu inteena dhammaanteen ilaahay wuxuu inuu maray diinta islaamka oo ku wada dhaqano oo sharci khilaafaadka ay tilmaamay qoyska iyo dalkaba iyo sharci kastoo yimaado hase yeeshee bini aadmigu isagoo oo inta ilaa iyo intii diinta islaamka soo baxday uu haystay oo ku dhaqmayay meel uu joogaba haddana khilaafka maalin uu jiraa dadku la nool khilaaf marka qolo waliba say u xasilayso isdhexgalkeeda ay ku tahay waxaan u aragnay markii arrintaa la eego in lagu xalli karaayo in bulshadu ay hesho xaqsoor cadaalad taama ilaahun baa gaara bini aadmigu ku dadaalaa inuu cadaalad gaaro laakiin waa bini aadmigu laakiin halba intaad dadaashay ku xiran tahay deganaanshaha dalkaaga iyo soo galaashaha marka afartiin haddii aynu eegno ayaa ah inaynu dadka uga garsooro koow waxa ka ah oo ay ku fadhidaan nabaddu waa cadaaladdana waxa inuu haysaa waaxda garsoorka oo culayska u badan ku dhaca ka soo qaad askariga qofka wax dilaya qabta ka soo qaad ninka dambiga soo ogeeya baaraya ama inta baaraysa qofka dacwadda ogeeya qofka waa dambiilo qarankii iyo dad buu dhibay leh ka maxkamadda gooynayo ee intuu eego wixii loo keenay ku kala jaraya bulshadeena boqolkiiba 90 qof u mahadnaqa qofka gartaa soo ooday haddii tiisa la yeeli waayo ma jiro qof walba uu ka cabanaya way tiisa la yeeli waayo taar bulshadu ma dhaqmayso waxaan hore u lahayn inagu aan dawladaha in la yiraahdo inaan ka garsimo laga helaha ma qaatay hadda way ku banaayeen laakiin ma waxa taala ba qaadan karta iyo caaqlay qaadan maayo waana dulmood ka qaadiyaha halkii loo dhintay askariga lagu qalay dadka xilka haya waa la wadaariya ilaa askariga hore soo bilaabo kiiska ilaa xaakimka u sareeyay maxkamadda sare markuu kiiska laga dib u dhaarta waxay u baahan tahay si maxkamaddu inoo aynu hela cadaalad in lala shaqeeyo hay'adaha garsoorka waa bini aadmi qaldami kara qofkii qaldan waa la sax kara ma hayo waa bini aadmi laakiin boqolkiiba 90 waxa laga yaabaa boqolkiiba 80 inta badan saxiix taas waa mid
halkeena noo garsooraya haddaba waa yahay garsoorkii nin oo weyn soo taagno waxnu garsoorka u qaado war isku raacay haddaba garsoorkii muxuu inoo qaadaya gartu inoo qaadaya maxay noqonaysaa saddex meelood buu binaad buu baahay inoo garqaado kow tawar waxa weeye fursadaha laba fursadood ta dhaqaalaha iyo ta waxbarashada binaadmu wuxuu ku qoraa waxbarasho iyo dhaqaale iska soo marka waxay dadkii dalka waa inuu fursadaha shaqada iyo fursadaha waxbarashada u sinaada waxaanu u samaysanay tii shaqada dawladdu waxay bixiso oo ah dawladdu imika ta ugu weyn shaqada dadka siisa ama qadarasa bixisa waxa loo baahan yahay oo aan u jideynay oo aynu soo marnay 3 sanadood guddiga qadarasyada waa inay dhisantaa oo guddi adag noqotaa oo wixii la iska daba tagtaa waa la kori doonaa laakiin wadaynu helnay oo waynu mahadinay waxa laga rabaa baacmisirka gaarkiina inuu u maro hantida uu dhisanayo iyo wuxuu bixinayo in loo sinaado oo kaas kale loo maro oo sharciya haddii dalka shirkadda lacagta leh mashruuc ay dhisaysa isagu maamusho keligii dee dadkii bulshadu waa inuu gaara isagu waa bini aadmi meel dhexoo laga waara karo wali jirta la maraa oo loo maraa shaqada ee qalabku magay laba waa tacliinta dawladda wasaaradda shaqagelinta iyo hay'adda tacliinta labadaba sharci waxay ku qabaan in tartan furan oo aqooneed oo xaq loo maro wixii ama course la tagaayo ama qofku shaqo ku galaayo shaqada dawladda uu dooranayo inuu aqoonta ku meel maro ayay labadaba mariyaan oo idaacada laga baahiyo TV-ga laga baahiyo si aan qarsoodi u noqonin oo qofna wadato labada hadii la helo labada marka rasuulna dalku cadaaladda waa helay ta saddexaad waxa weeye in dadka nugul ama laxaadla ama faqriga ah ama si kale u taag daran in xukuumaddu ay awood siiso oo ay caawiso oo aan lagaga tegin dadku waa nugul oo qura dhibaatooyin badan baa jira dalkeena inta badan waa nugushi afkana inta badan oo laga yidhaahdaa laakiin xukuumad ahaan iyo dad kale waxay naga saaran inaynu hubinno in dadkaasi wixii ay mudnaayeen la gaarsiiyo xukuumaddu dhib kasta culays kasta saaran waxay qaaday sanadkii hore inay dhaqaale taageero gaarsiiso 200 kun oo qoys oo danyara oo gobolladoo dhan waxaanu ognahay dhaqankeenu inuu hablaha iyo nimada u kala exdo oo hablaha intooda badan iska wadaash xitaa kuwa laxaadka qaba kuwa laxaadaanaya ku dhacdo aan ciidana diriyeen guriga lagu xiro wasaaradda shaqagelintu iyo qoysku sanadkii dhaweyto waxay tababar u furtay oo xirfadaha ay ku shaqeystaan ay gaarsiisay 8,976 hablood oo Soomaaliland oo gobolada dhan waxay gaarsiisay deeq raashin in ka badan 70,000 oo qoys oo barakacaya oo gobolada dhan wasaaraddaasi dhaqaalaha kii dawladda ay u qorshaysay waxa kaloo dheeraa oo ay naga caawiyeen dawladaha saaxiibka la ah iyo UN kuba in ka badan dhaqaalaha lagu taageeray dadkaasi iyagana waa u baahnaqayna qodobka saddexaad ee bulshada nageyn kara degin kara ee nabadda lagu helayo waxa weeye maamul wanaag oo ah waxa la maamulayo ama shirkad gaar loo leeyahay haato ama dawladda haatee inuu noqdo maamul la wada arkayo oo dadku qacsi waxaan ku dadaalnay inaanu hawlgelino hanti dhowraha iyo xisaabiyaha iyo inta ilaalisa hantida dawladda iyo waxay dawladdu maamulayso sanadkii dhaweyto hanti dhowrku wuxuu baaray 270 hay-adood oo dawladda ah inkastoo sharcigu dhigayo shirkadaha waaweyn ee qalabkuna hanti ay yihiin la baara wali heerka ma inaan gaarin waxay ku ognaayeen xukuumadda qulafta ka adkaado 270 waxa la soo eediyay koob iyo 30 mas'uul oo dawladda u shaqeeya oo hadda u eedeysan lunsi hanti qarneed wixii ka cadaadana ay helayaan waxa la soo celiyay lacag gaaraysa 5 bilyan oo ka maqnay khasnada dawladda mudana yaariye marweyn
in kasta oo aynu ku dadaalay bulshada waxa ay ku nugaan lahayd oo qodobada soo sheegay oo meelahaas oo dhan la abaaray si bulshadu nabad aynu u degno ugu nagaan haddana wali fardambiye dalkeena ka dhacaa marka tiradan loo eego way badan yihiin haddana wali fardambiye dalkeena ka dhacaa mudanayaan way badan yihiin sanadkii dhammaaday maxkamadaha waxaa soo gaaray 4824 dacwadood maxaakiimteena tiradana waa taqaaneen iyo shaqaalahooda waxaa ka badan inta meelo kale oo ama xeer geed hoostii ama wadaadada diinta islaamka ee shareecada ay gaar u qaadeen oo dadku qanceen oo laga yaabo inay inta ka badan tahay dacwadaha dalka ka jira dacwadaha intoodii badnayd boqolkiiba 80 iyo dheeraad way dhameeyeen maxkamadu waa ku mahadsan yihiin way ka garsooreen inta hadhayna sanadka inta soo dhameeyay waxaanu qaraynaa inay dadaal badan u galeen maxaabiista inoo xirmay marka tirada dalkeena loo eego way badan tahay waxa xabsida maanta ku jira waxaa saaka 2904 maxbuus tirada aynu hayna waa taqaan waxay u badan yihiin intood badan dhalinyaro aan gaarin 30 ayay u badan maxaabiistaas halkaa waa qiyaas kartaa hawsha inoo taala maxaa dhalinyarada inay xabsida geeyeen 4 dambi ayaa u baahan inaan isu taagno waynu u baahannahay mujtamac ahaan waxay nagu soo kordhin weeye way nagu soo bateen waxaynu u baahannahay inaanu si dhab ah ugu soo jeedsano ka koobaad waa dembiga kufsiga waxaa soo gaaray xeer alinta 142 kiis oo kufsiga sanadkan dal gudiis waxaa la hubaa inay intaa libalaabkeed ama in lagu yaraan ama ka badan aan soo gaarin xeeraanta oo la qarinayo oo qoyska u qaba taabuu balaa dhacday oo aanay soo saari karin wixii dhacay qofkii ku dhacay nasiib darrada waxa weeye gabadhii waa la hayaa oo waxa leeyahay gabadhan ilmaysa tawa way dhiftay laakiin ninkii waa libaax lama hayo uu qaynaya cidina dooran mayso yaroo shaqada kale oo baahan dan lahay golayaasha qaranka oo isu dhan maanta maxkamaddu waa fadhida inuu arrintaa xoog weyn saaro si looga hortagi lahaa waayo waa waxayna dhaqan lahayn waxaan u badayay magaalooyinka inkastoo miyiga uu jiro kiiska labaad ee u baahan inaynu aad iyo aad uga feejignaano ugu soo kordhay waxa weeye mukhaadaraadka waxa u xidhan baayic mushtar ay ka baayic mushtareynayeen waxa la yidhaahdo mukhaadaraadka 535 qof oo boqol dhan ma aha ku cabaya waan ku celinaya waa inta ka baayic mushtareynaysa waa masiibo loo baahan yahay inaynu isla ogaano oo laga hortago oo weli nagu soo badanaysa saddexdaa kiis waxay u baahan yihiin labadaa kiis inaynu dib uga fiirsano si aynu xoojin lahayn looga hortagi lahaa laba ka saddexaad waa baabuurta sanadkan dacwada baabuurta shirka ka dhacay waa 302 ilaa 100 qof baa ku dhintay tira ka badan ogaada koonfurku wuxuu naga diray kontameeyo baabuurtuna waxay naga dishaa boqol eerisku wuxuu naga diraa waxa boqol ka yar baabuurta boqol bay naga dishaa dhow waxaanu baahanahay dowladdu ama wasaaradda hawsha ku leh taraafikada iyo gaadiidka in badan baan kordhin xataa waxaan gaarsiinay gaariga limidkiisa in la xidho oo mishiin la saaro ay dowladdu lacagta bixisay waxaanu gaarnay in baabuurka wasaaradda wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama xafiiska ibrishka uu og yahay baabuurku meesha marayo waxaanu soo saaray qalabkii lagu ilaalinayay baabuurta ee markuu soo dego baabuurkan ma socon karaa mise ma bixi karo intaba waa soo koray laba sano u dambeeyey waynu ku hirgelinayna laakiin maxaa ka bedelan dadka ma bedeli karo dadka ma bedeli karo gaariga ninkan cidda u dhiibayo baabuurta waxaasna badankood waa gaar baa loo leeyahay ama waa baayic mushtar haddii la soo eego khasaaraha dowladda berigii hore dowladdii hore aan soo gaarin dowladdii hore inta ila midka ay soo gaadhay waxa loo jiray maqaadirsi war maanta ciidanka maqaadir ma raxmo oo noqonaya ciidamada wax jira way yar yihiin maqaadirtu waa private waxay bayday baabuurta wada private baabuurta ay baabuurta baacmis ku yartay
weliba ku baaxmisa waxa ka sii baabuurta gaarka loo watay yar yar baabuurta kaleynaysa mas'uuliyadda waxa leh cidda baabuur kale iyo ubadka wada iyo qofka loo dhiibay waxay garin baynu baahanahay guriga ka soo bilaabanta oo la ilaaliyo dadka naftooda la ilaaliyo si aynu u yarayno shirarka iyo xabsiyada waxay u baahan tahay inaynu saddex qodob eegno qaran ahaan qorshahoodii dowladdu way soo dhigtay NDB-gaas ku jirtaa sanad 2030 halkaynu kusarayno waxa ugu horreeya inaynu saboolnimada hoos u dhigno saboolnimada inaynu hoos u dhigno mar walba aynu ka hadlayna sidoo kaa sameeyo su-aashu waxa weeye waa hoos ma u dhigi karnaa ha lacagta dalka soo gasha ama xoolaha dhaqdaha haatee sakadeedu haddii la isu geeyo si fiican loo maamulo sanad walba 10% hoos u dhigi kartaa isxisaabiyeedu nin walba isxisaabi haddii dowladdu lacagta haysata ku waajibtay waa ta ay ugu shaqaysaa adeega oo bannaanka taala idinkaa gala xisaabtamaya oo abba golayaashii hanti dhowrkaa baaraya idaacadday martaa jaraa'idkaa faalaynaya mucaaridkaa daba taagan hantida qaranka dowladdu 10% bay kala sheekaya 90 kale ee qaranku haystay barkad leh ee xoolo leh ee taajir leh ee doomi kalluun leh waxay u baahan tahay in la fikiro oo la isu geeyo hantida dalka qaranka joogta in loogu tala qayb kamid ah in lagu yareeyo faqriga sii kordhaya ee carruurteedii 500 wax ay ugu xiran tahay baacmiska mukhadaraadka boqoloodu oranayaan baabuur iyo taraxum mas'uuliyadda koobaad xukuumadda ee golaasha saaran tahay iyadoo qorshaana waa la idin keenaya golayaashaana ka dawada doona dadweynaha waa inay hoggaansamaan talabaad waxaan u baahanay wacyigelin dhibaatooyinka iyo solutionka iyo sida loo xaliyay aynu soo dhignay waxaynu u baahannahay inaynu galno tabliiqi dadka aqoonta leh sheekh iyo professor PhD sita iyo ilaahay caqli siiyey iyo abwaan inaynu dadka ka waarayno dhibaatooyinkan inagu soo iswaraaday khatarta sida maandooriyaha iyo kufsiga iyo wixii lamida saddex xukuumadda waxaa ku waajiba inay xoog dheeraad saarto la dagaalanka xashiishada kufsiga iyo dilalka iyo controlka baabuurta dadkana gacan bay uga baahantay waana go-aan waana ku dhaqaaqnay waana qaylada ugu badan gaariga dila 10 qof ee yaro ciyaar wado marka la soo xiro stage-ka intaanu iman suldaankii iyo xildhibaankii iyo taajirkii baa cararaya annaga dambeena adeer iska jida kan dadka ciqaaba marka ay reer guri ninkiiba kiiska wala cararaya wax ku soo تقبلت ولا تعرفوا حسكو دلمنا لما ورد يسوي حق شكت مركا waxay dambiile waa dambiile wargaar qadan warnin budul amdan toogtay ka lahaya wala wada caray tayna isku waxay galin baynu iska baahnay xukuumadana lagu xoojiyo waa in ay gacanada ka qaada waxay la tahay warankii dalka haddaan intaa ku dhaafo doorashooyinka Somaliland waxa lagu majeertaa oo Ilaahay mahadiyo maanta inay tahay mantaqadeena ku nool lahay dalka qura ee 19 sano u dambeeyay ay dimuqraadiya ka hirgashay dimuqraadiyadeena waxa lagu dhaliilaa golayaasha muddo dhaafa laakiin taa waxay ka dhawaayin dalka taa inagu qabsanaya kuwa lacagta lagu dhuraayay ee adduunku taageero ee budgetka badan leh ee malaayiinta la siiyo ee jibcad qurwaxaas la joogto doorasho qura ma qabtaan qof iyo cod ma gaaraan tii qabiilka isu soo ureeyay lagu taaglaay war hadaan ciidamo taageerin oo ciidamo aqoonsanayn oo dhaqaale cid lagu siinin oo dhaqaalaha kooban yahay oo golayaasheeda iyo systemkeega aan u dejisanay markaanu qabsan karayno qabsano markii muddo dhaaftana aan leenahay sharci aan isla ogolahay oo ku gaadho muddada ku bedelayno wax dhaliila ma laha laguma eedeyn karo hadda markaan lisanska waa qabanayna ayaa waxay aad ka dhigaan way daahsanay intanay daahday may daahina goryaalu ba shaqeyn lahayd dantayada seegtay goryaashu may diidanay ka caane tamartayda inta ku xidhay idinkuna ma yaa caaw dhawaa canaanta maanta doorashada waxa ka hadhay 3 state waa ilaahay mahadi waa nuslo wada ogolahay in doorashada baanta inoo dhacdo waxa kale dhammaanteen isla ogolahay oo inaan isku diidanayn
oo inoo ballana inay noogu dhammaato nabadgeliyo iyo xasilooni waxa inoo ballana qofkii wax tirsaday khilaaf tirsadaa inuu si nabada u doono wixii ka maqan loola garab galo taasaa inoo ballana wixii intaa ka duwan heshiis kuma nihin waa qof qarjaxa kow maanta ciidamadu waa diyaar komishanku waa diyaar xukuumaddiiyo miisaanaddeedu waa diyaar ilaahay mahaddi baynu joognaa taladu waxa weeye inaynu si wanaagsan hawsha oo dhan qurux badan waxa sharaxan oo haddii aan la yidhaahdo maanta golaha taagan 900 iyo 93 murashax hablu waa ku yari waana waqti la wada dal waliba soo maray taa isku canaanayno waa wax la baran doono oo socodda laakiin waa ku jira waxaynu ognahay oo maanta Somaliland qof waliba garanaya inta dhacaysa ee kursi helay inta kursi soo baxaysa hadda halkan fadhiya dhammaanteen waa soo ogolay waxa soo bixi doona 3 meelood marka loo qaybiyo meelaha 2 meelood way dhacaya waxa dhici doona 600 dheeraad waxaan sheegay murashaxiinta lacagta bixinaysa ee dadka abaabulaysa ee jaranjarada adag maraysa ee imtixaanka la maranayo maxaa taqaanaa tacliintaada soo dambi miyaad gashay soo mar miyaad wax lagu haystaa ee meel walba laga soo baarayo ee dhibta intaa la ka soo gudbaya ee xisbiyada dhexdooda ka soo gudbaya ee deegaanada ka soo gudbaya intaas oo hargabayo horta waxaad ogaataa shacbi iyo xukuumad ahaan inaan u hayno dadkaas inay yihiin dad milgo iyo aqoon iyo qadarin iyo xirkasa dadka intaas marxalad soo gudbay sharafna waynu hayno laakiin waxa xaqiiqo ah oo xeer inoo ah oo isla ogol lahay in ay soo baxayaan 300 iyo 600 ay dhacay waxay noo ballan waxa la yiraahdaa farafiyo waa xeer samaysta iyadoo xad cimro la sheega waxa xeer kule inoo sheegaya oo isku talagelaysaa oo intaas oo dadaal maray haddii nasiibku ku reebo inaad qaadqad u qaato oo aanad waxaanad xaq u lahayn oo nasiibku ku reebay aanad bulaan iyo bulxam iyo qaylo ka keenin waa ballan inoo tahay waayo imika waa ogtahay dariiqa aad maraysaa khatartu leeyahay qolada kubadda ciyaartaa waxay dhalinyaradu kubaddu waa bar cad iyo bar madow awrigstaayo mootidinka kelis dee siyaasaduna waa haa iyo maya walaa kursi cod baa kaa doonaya maysiinaysaa haa ee qaado waad soo bixi maya waan kuu diiday waad ka tegi markaa murashaxiintana waxaan u sheegay waa soo weerinaa waa dhici jirtay maanta radinkeeda kuma horeyso inaad ku tala gashaan inaynaan bulaan iyo buuq iyo wax ka badan inteena soo xushay ee deegaanadani ee xisbiyadani ee golayaashani ee xukuumaddana waxay nagu waajibaa qofka xaq uu leeyahay ku doodaya inuu si nabadgelyo ugu doono oo lagu hubsado inuu xaq leeyahay kale qofka qardajeexaya ee qafqafdana in la qabto oo la wada gardartay joog ayaa inoo ballan taas uma ku arkaa nabad taana intaasaan kaga tagay arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay nabadgelyo iskaashi iyo wada qabsi caalamka oo dhan iyo dariskaba soddonkii sano u dambeeyey fagaaro kasta oo tagniyo dawlad kasta loo hadala waxay nagu xujeynayeen ama ay nagu gudbayeen xaalkiinu waa xaal Afrika ah midowga Afrika iyo Afrika ayaa anaga nooga farduuban qaaradda tagtaaba ama daacada ka ahaato ama gar ha ahaatee muddo taa lagu horjoogo saadartay waxaanu qaaday jidka ah in Afrika laga hawl galo deetana sanadkii u dambeeyay xoog badan baan saaray Afrika san ugu yeeran lahayd saaxiibo cusub waxaanu ku buurisanay inaan dhammaan dawladaha Afrika horta waraaq qoraal ah oo u sharxaysa Soomaaliland waxay doonayso iyo inay xaq u leedahay ay ku cadahay inaanu u diray dhammaan madaxweynayaasha geeska Afrika meelajooda dhammaantoodna ay heleen waxaan naga soo noqday in naga aamusta waa jirtaa in badan ayaa naga soo weydiisay macluumaad intaa ka badan oo u baahatay tafsiir badan in loo soo gudbiyo saaxiibo ku qancay ama hore u ogaa inay Soomaaliland xaq u leedahay aqoonsiga dawladoodana aanay ahayn doos iyo waxay ku fadhidaan
in badan oo weyna taageeraynu ka helay walaalayaal waa ogeydeen marka aynu safar u baxnaba colaadda xamar ka bilaabata taa dib baan kaga hadli doonaa afrikada aynu xudxudanaynay ama aynu warramaynay waxaynu xoog saaray waxay ku soo dhammaatay oo afrikada ku riixdaa mar walba idinkii Soomaaliya hadda waxaan ku nahay gar maaha nintiisiba u taag waayo tashan waayay oo isaga tawsiifoodo tahay tii hanagu xidhiyo idinba kan caal weeyay waa noqotay qasab in la hadlo wada hadalladii inaga iyo xamar naga dhexeeyay mid taageero baan dib bilownay wada hadalladaas waxay ku dhamaadeen halka baray waa ka degsantii waxaa warihi noqday oo waliba qolada xamar ay doorteen anaan ku raacay oo naan diidan markii hore in Jabuuti lagu qabto fagaara lagu hadlayo shirka waxa wada Mareykanka oo wada dadjiyay shirka qolada Jabuuti waxay ka ahaayeen gogashay dhigaan jeerkana way hayeen waxaan uga baahanaynaa madaxweynaha Jabuuti ba inay saddex dhexaadnimo ah oo waayagnimo shirka ku hogaamiyeen oo aanay cidna dhinaca saarin ee nin waliba fagaaraha wixii uu leeyahay ay si wacan meel isku cabiri karo dagaladaysa kana u dhigeen wixii ka dhacay iyo sidoo ahaa idinku cilmaayo oo goobjoog u ahayd waxa ku xigtay muddo yar kadib in Kenya madaxweynahoodu uu ina marti qaaday iyadana wixiina dhex maray iyo wixii ka soo baxay iyo kubilkayga waa haysaano idinku cilmaayo taa waxaan u sheegayaa waxa ka horeysay Guinea oo sanadkii hore tagnay oo si wacan oo taatu lamida ah oo ka dharsan aqoonta Soomaaliland dhibaatada inay u tahay haddaba walaalayaal waxaan wada ognahay oo inaan isu sheegeen imika laakiin u baahan inaan isxusuusino marka ay Soomaaliya maqasho Soomaaliland dal baa casumay ama dal ilaahay meel u sheegatay waxa la yaab leh cadaawada iyo naca iyo talaabooyinka ay qaatay iska jir xorka waxaan isqabanayn marka ay hadlayaan ay dood keenayaan soddonkaas oo caalamka dhageysanayo waxay ummadda u sheegaan Soomaali ma kala maaranto walaalayaal waan idin baahanahay dad isku mid ah waxaan weydiinayaa ninka bilga ku ogolaan waayay xashaan lili ka xasi xumi waaya nin baa ku sooriyay nin baa ku kalaameeyay dawlad baa hadday walaalnimadu jirto ay xamar ragga ka taliya sheegayaan ninka walaalka kalaameeya ee sharfa adigana uu ku sharfay inaad ma hadaqdaabay laakiin waxay moognahay wixii dhacay ninka Soomaaliland kalaameeya ama wax la qabta inuu ilaaw waan ku dagaalamaya oo cadaawad baan ka xigaa Soomaaliland waxaan leeyahay warkaayo qoladaas kuma dhacayo dawladaha ina kalaameeyo wuxuu ku dhacayaa waa inaga dadka waxa loo quuraya waa Soomaaliland waxaynu doonayaa inaan u sheego Soomaaliland ma tuuliga Soomaaliland muqdisho dadka ka taliya shacbiga muqdisho iyagaaba aftuuban dadweynaha muqdisho way ogyihiin waan arkay wax dhacay dadka talada u haya iska dhaaf Soomaalnimo isu keenaan talaabooyinka ay qaadaan waxa weey to aanay Soomaali warigeed isku imanay iyo cadaawad warigeed ala kala geeyay iyo wax aan la isu quurin hebelow ninka asaad salaantana walaalaanahay milga iyo sharaf iyo bogaad buu ka mudo وأركز كيري وحكي دعي وأركز وحكي دعي قريب شوتي وحكي دبي كتب يسوي ويدي شركة قبضتين يقول يبتين هذا ودي أي لوج يستوي واحد لوج سيد أن درنا كيري ويدي هذا بعض الوقت شوتي بدحولا شوتي كرسوروها وفتقونا ما هذا سلام بنا وده ونا وفتقي سعود نح إلى هاي السكاي تاعي ما أعرف ولا أنا عن قارب الموسي فقارة هاي نقول واحد جالس شغالي هذا نوع حكى عاد أبوه ذي وحنا تاود إيران ما أنت مقدشو دولة هذا وقت يدور ما دولة عصمنا لما دورا شرعنا ومكرمين هذا نوافق ده وما ماي
Soomaaliland waxay diiday oo markii ay madaxtii la wada lahaa ay duntay ay ka doorbiday inay gaar u tashato oo tii halka cirkii arkay kama soo jeedaan soddonkaas sano waxay arkay wax la wada shaqayn kara ma hadday soddonkii sano iyo gaar u baxday ninka maanta Muqdisho jooga waqtigiisa uu dhamaaday sharciga loo kordhin waana xukuma qodobada la isku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo kamida oo mar walba idaacada laga hadlaa waxa la isku haystaa baarlamaankii gobolada waqooyi matalaha cid soo dooranay cadaawadii hore iyo tii hore dhacdo waxa ka xunta maanta lagu leeyahay qaranka halka baarlamaankiisa fadhiyo ee dawladdiisa fadhiyo ee ummadiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof waliba maanta codkiisa qaatay doorashada diyaarka bal sababta xamar looga oranayo baarlamaankii matalaha baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn hal ay sheego shacabka xamar iyo dadweynaheedu iyaga abaaftu hore oo sheegay waxaan u sheegaynaa caalamka waliba xubnaha xamar la jooga ee Muqdisho oo aanan garanayn qodobka ay halka ay ka joogaan xamar maanta ma dawladda istaawaya ma iyaga u taliya ma kii dhacay baa haysta ma cid kale loo dhiibay waxaan u sheegaynaa waxa gardarro in xitaa kuwa caalamka u dhageystaan ay ka dhageystaan oo ay ku ansixiyaan boqolba baarlamaanka laga soo doortay iyaga laftooda qaybka gardarrada soo yeeray waxa kamid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo aqooyahanka Soomaaliya ee Soomaaliya jooga ee u dhiibanaya codkooda la noo tali nin dalkiisa ka fakadka ah waradina idin turi maayo wax gelin maayo kana uu ka fakaday marka iyaga laftooda say u aqbalayaan waxa cod idin sina wax idin dooray wax idin bedelaya niman cidna matay qolada Soomaaliland u dhalatay ee halka wax ka deeysan waxaan leeyahay idinka ceebid ku tahay xaga laga doortaa ceebid ku tahay midba deedaysan midba xaga u marsan ma bari hidda lagu doortay halka wax ka tagnaad wada ka caray taana wax ka tarimaysa waxaan u sheegaynaa iyagana sharciga lagu dhaqmay in la adkay doono waayo waxa inoo galay waxa inoo fudaatay in la yiraahdo waa habar uu ka soo noqdo afis uu doonaya dabeetana la soo qaadaya waa nin weyn dalkiisa ku soo noqday hal saamay hal saamay haddana uu noqday kila saamay baa noqday mid ka taliya meesha aqli ma qarnimada meel ka dhacaysa sharciga adkaaya baas galaysa ee ahaa ilaa maxkamad la mariyo lama saamixi karo kiba lagu dhaqayaa talaga waxa loo gudbayaa qaramada midoobay jimcada qurba ka dhaxaysa waxay ku dhisan tahay oo mabaadiida koobaad tirarkaas la inoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda bini'aadamka inay ixtiraamaan ayaka tashiga ummadeed Soomaaliland waxay tirsanaysaa markay eegto soddonkii sano u dambeeyay jimcada qurba ka dhaxaysa say sagad inda tirayso qadiyada Soomaaliland oo guriga baaragtay xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay Soomaaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin Soomaaliland sharciga loo aasaasay oo garabarayso waayo Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxa qaatay markii ay duntay dawladdii midnimo qaran lagu heshiiyay 60kii ay labadii dawladood ee xorta ku kulmeen markay duntay Soomaaliland iyadoo isu dhan masiirkeeda inay gooni dawladda u dhisanto oo 60kii soo celiso 18kii May 1990 jimciyada qurba ka dhaxaysa way ogtahay xeerkii hore lagu midoobana way ogtahay Soomaaliland waxay histo tahayna way ogtahay iyadii Afrika muran kama jira inay oo waa la wada ogay Soomaaliland inay ahayn dal goosanaya oo dalka go'aya hore u dhacay taas oo kale Senegal iyo Mali way kala baxeen Gambia iyo Senegal way kala baxeen Masar iyo Suuriya way kala baxeen sababta Soomaaliland ay indhaha uga qarsanaysaa jimciyada qurba ka dhaxaysa iyo xubnaheedu ee loo ku heshiiya maanta waan weydiinaynaa ninka matalaad jimciyada qurba ka dhaxaysa James Wan ee jooga xamar halku ilaahay la midoo heshiiya isaga maamula isaga la heshiiya yaa maamula la heshiiya soddon sano cid ma mushamar meesha la cid heshiiya labadii dawladood
ay ka duntay TPS markay kala baxeen Soomaaliland waxay qaaday jidkii nabadda dawlad dhiska dimuqraadiyadda iyo dawlad dhiska qaaday dhinacii kale wuxuu qaaday dhinaca fawdada iyo dagaalada iyo qaraxyada iyo ishaysiga aan dhamaanay waxa la yaab leh dawlado badan oo maanta dawladda haweenka magac ku leh ayaa waxay ku daldalaan xamar dawladda xamar maalin walba hub iyo lacag iyo awood diblomaasiyadeed waxa isweydiin leh marka laba dawlad ay ahaayeen ay ka duntay dhexe ay kala baxeen dawladaha caalamka iyo jibcada qurubaha ka dhaxaysa ee billions waxa la 100 bilyan baa galay Soomaaliya ilaa 1999 100 bilyan Soomaaliland bilyan ma galay waxa marsiisay aan wasiyaanay ciidana loo masruufo baarlamaanka loo masruufo qadiyada dawladda loo masruufo intaba alxamdulillah shacabkooda isku tashadoo haddana waxa lagu dardalaa inta waxa la qaar baa hub ku dardalaya oo darkiisa waxa la isweydiinayaa Soomaaliland isweydiinaysa oo jabcida qoro waxay soo weydiinaysaa iyo kuwa taageeraya ma waxa la dawladdu caalamku uu taageeraya fawdada iyo dagaalka iyo qaraxyada iyo burburka mise wuxuu taageeraya cidda jidka hayaysan qaadaya dhismaha iyo waxbarashada iyo dimuqraadiyadda su'aashaana waxa uu sheegay jidka qoro waxaan ku soo ururinayaa hilaadinta iyo u diyaargarowga mustaqbalka Soomaaliland aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaan waxa muhiim u yahay wanaajinta nololeed ee mustaqbalka dalkeena iyo caruurteena dhibaatooyinka dadku abuuray sida khilaafka badan dhuxulaysiga iyo dhintooda shaqeeya oo abaaraha horseeda ceshimooyinka dhulkii xooluhu daaqayeen in walaba intuu awood leeyahay xidhay dhulboobka magaalooyinka ka socda ee meydka meel lagu aasan leeyahay meel banni ooti way wajigada ku dagaalamayo isbeddelka cimilada ee ilaahay keenay tiknoolajiyada casriga ah oo waxtar badan iyo faa'iido badan leh laakiin hadimadeeduna aanay yarayn wana dheersi lahayn dhibaatooyinka aan soo sheegay waxa ayna tusayaan in ay inoo taalo haddaynu Soomaaliland nahay oo dadka maanta xilka haya aynu nahay hawl ballaaran oo u baahan inaynu waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan gelino dhammaanteen oo kala hadlahayn xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta waxa ku waajiba inay ku dadaalaan inay keenaan oo marba hirgeliyaan sharciga iyo wadada la marayo ku toosan hadba xaaladii taagan Soomaaliland markaynu soo koobno haddaad isweydiiso qofka Soomaaliland daa kasta hawo 10 sano ka bacdi maxay doonaysaa sidayna way kaatay doonaysaa Soomaaliland maxay doonaysaa oo run ah oo gaari karta waxay la tahay dawladdu jawaabta waxay kaga jawaabtay qorshaha NDP2 kalabaad ee ah Soomaaliland 30 sano halkay noqon doonto oo ah Soomaaliland waxay doonaysaa in ay noqoto dal dimuqraadi ah oo sharciga lagu dabaqo sharcigu nin walba ka sareeyo nabadgelyo ah barwaaqo ah dadkiisu ku nool yihiin hodantinimo loo dhan yahay oo qayb quri lahayn oo aanay ladnaanta in yar ku koobnaanin iyo inay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ee ka soo dhex muuqda Afrikada madow oo dhan iyo adduunka taas waxay nooga baahan tahay inaan sukal iyo laaba ugu hawl galno inaynu gaadhno higsiga iyo himilada hirka fog ka muuqda aynu tiigsanayno waxaan ku taagi karnaa inagoo si dhaba niyadda uga howlgalo shacabweynaha Soomaaliland waxaan u rajaynayaa guul waarta barwaaqo iyo nabadgelyo waxaan mar kale ammaan iyo bogaadin u diraya golayaasha dhawaan xilka wareejin doona golaha wakiilada iyo golaha deegaanka Soomaalidu waxay tiraahdaa mahmaa caama jirta
عاينة وأروس كلا أمانة ودمو نكستول عاي ما أنتم تقول له بدو يا الله هبر بوهاي نكستول أمانة يا ما أنتم أروس اللواي ما يوحى لك الشيء ولا لا أنت أقولها فريدين أروس واحد رواد عايني ما أنت ما يقدر يقول لكن حركة هذا بنيسان وانو إذا شيء قلنا أمانتني وحقبتين ضل كوا صورستين إن كستاه لدي الماضو إن كستاه حضوري هاي هذا wax badan baa qabatay oo anaguna aan yiri uma jirto dhaliisha iyo turturka hadii waa raagteenta waxa leeyihiin oo idaan nagala tagay oo golaasha tagay oo ayaan dalka kala tagay oo intaan kuraasadina banayo isku maagna hadana aan leenahay walaalayaal waa idin baa ayaa tagayna waayo aragnimada dhowr iyo 10 sanadood ee golaha dalka maanta idinka waa aragsan wuxuu u baahan yahay garanaysa sharciyada garanaysa ninka cusub imika la soo doortay wixii aad soo jeexdeen oo dhan u dib u jeexaya haddii aad iska taagin oo idaan ma tan hore loo maray ka daa mareen dadkuna saas buu ku qabsaamaa markuu qofka waariga qofka la gaaro dhaqankeena maanta ku jiro iyo xeerkeen iyo xuduurfaan ku noolahay ayaana golayn in la waariyo waa aragnimada la lumin xil kasto la hayo waa la daba taagay xil kasto qof loo dhigo waa la daba taagay in badan uu joogo banay qaar baa warayd reeb baan bariya waxba tamir reeb lagu wareejiyo warday dawladda ku dhismayso waxay ahayd oo inu gaari doonaa insha Allah in la yiraahdo golaha wakiilada iyo kan guurtida iyo golaha kasta waa inuu kolka la bedelayo badna jooga badna laba sameexood bedela oo kolba bar waa arag si fadhiyo sayna warino luminadii iyo meel walba laakiin dhaqanka aynu marayno iyo itaalka aan leeyahay ayaa maanta ina marinaya in golihii dhamaa nin quri dib isu soo shaqo intaan ogahay way dhamaan ma aha waa la dhinacay ma aha waa xumayseen war wax badan ma dalka soo qabteen idinka iyo kuwa dawladda hoose way ka mahadnaqaynaa waxaan soo dhaweynay waxaan soo dhaweynayaa golaasha cusub soo bixi doona horta ilaahay qaar khayr lahayd nooga dhig waa aragnayna wala daba joogna ka fogaan maysaa ninka sharaxay intaas oo soo maray waxaas imtixaanka soo gudbay dabcan waa qof xilkasa qadarin leh suul bal soo hubiyay iyagana ilaahay idinkiisa Allah ha u fuday hawsha waan soo dhaweynaa waxaan ugu dambaysiinayaa oo ugu mudan maanta waa 8 March waa maalintii waa maalintii haweenweynaha adduunka oo dhan ay lahaayeen ay u dabaal degaan oo ah dumarku inay dhibaatooyin badan oo xuquuq badan oo qaar aad u leeyahay ay ka cabanayaan haweenka muslimka inta badan diinta waxooda u goysay iyaguna waa ku raali laakiin cabasho badan bay inoo sheeganayaan oo daw ah oo aynu dawla garaawano laakiin haddana aynaan inta badan ka fulin haweenka Somaliland iyo haweenka adduunweynaha waa hambalyeerina waa maalintii 8 March waxaan u rajaynaynaa horumar iyo xuquuqaha ay wargamayaan ee diinta islaamku ogoshahay dhammaantoodba inay gaari doonaan waanu ku garabgelin halkan waxaan uga ducaynaynaa maanta shalay magaalada Shilba ka dhacay aqal ayaa gubtay guri ay ku jiraan arday 200 iyo dheeraadihii aad iyo aad baan ugu nasiib badan Ilaahay badbaadiyay ciidamada dadamiskana waa gurmadeen booliisku carruurtaasi guri fooqay ku jirtay waa la wada socotaan sida wax u dhaceen Ilaaha aad iyo aad u sahlay carruurtii wada nool yihiin wixii gaaray waa dhaawac aan waliba badankoodu in yar mooyaa ay dhaawac fudud yahay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhaawacana inuu caafimaad degdeg siiyo aad iyo aad in carruurta ugu ducaynaa Ilaahay caafimaad siiyo Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inay noo soo wada badbaadeen waxaynu ku daraynaa in laga digtoonaado meelaha dadka badan lagu ururiyo waxa weeye waxaan ka dardaarmayaa in meelaha iskuulada cusbitaalada wadada dadka badan ku shaqeeya dadka mulkiilayaasha ehelay inay ku tala galaan waxyaalaha laga maarmaanka waxa ugu yar meesha dadka naafada ay marayaan waxa ugu yar haddii wax dhacaan wax laga baxayo waxay u baahan tahay waxyaalo badan in dhismaha
la iska xil saaro ugu dambayn waxaanu ku jirnaa kariishii kuleyd ilaahay waxaan ku rajaynaa inuu abaarta naga soo jebiyo ilaahay rabbiga adun baan ku baryaynaa addoommahaaga gacmaha horsanaya nahna qadin ilaahay roob degdega oo barwaaqa oo sariica oo dhibaato lahayn baan ka barin cimri wanaagsan iyo caafimaad baan ka barin naxariistaada janno aakhira ayaan ka barin inta mutana Allah inoo shaafiyo dalka dadka walaal inoo barwaaqayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh